waa hagaag dhegeystayaal aynu ku bilaabnay warbixinta ugu horeeya labada ciyaaryahan ee AK iyo Sancho ayaa waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta Chelsea ay doonaysaa inay la soo wareegto bisha January sanadka 2020 kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa doonaysa inay markaa qarash gareeyaan in ka badan 150 milyan oo lacagta ganiga waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu xusaya in arrinkan uu yahay mid la doonayo in lagu xoojiyo kooxda kubadda cagta Chelsea dhibaato xoogan iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay soo wajaheen kadib markii si fudud ay isaga fasaxeen xidigaha Eden Hazard iyo sidoo kale David Luiz oo labada ciyaartooyba ku kala biiray kooxaha Real Madrid iyo Arsenal hadda maamulka sare kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u arkaya loolan aad u adag maadaama labada ciyaaryahan ee AK iyo sidoo kale Sancho ay ka mid yihiin ciyaartooy da'yar mustaqbalna ku yeelan kara xifrada kubadda cagta waxayna u arkayaan labada ciyaartooy inay dhaxalgal xoogan u noqon doonaan kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa sidoo kale soo baxaya madaxa suuqinta kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa arrinkan sheegay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea aanan lagu guuleysan doonin walow labada ciyaaryahanba ee dalabyo kale ee ka soo gaaraya tartamada kala duwan ee qaaradaasi Yuruba kooxda kubadda cagta Real ee ka dhisan horyaalka wadankaas Isbaanishka ayaa dhinaca kale xoojinaysa hamiga ay u qabaan tababaraha hogaaminaya kooxda Tottenham ee macallin Pochettino waxaana la sheegay in gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez uu aad ula dhacsan yahay hab maamulkiisa aad ku adag ee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur maxaa yeelay macallin Pochettino waxa uu aad ula dagaalamaa kooxo awood kale markii loo eego Premier League waxaan doonaynaa inaan markaa u soo boqolino xifradiisa kubadda cagta ee macallinimo markii loo eego macallin Pochettino inuu ku wanaagsan yahay magaalada Madrid inuu ka soo dhex muuqdo si markaa uu la janqaado horyaalka wadankaas Isbaanishka haddaba gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaana markaa sheegaya in arrinkan uu noqon doono mid ay suurtagelin doonaan isagoo sheegay in macallin Pochettino sidoo kale oo ay markaa ay aad u baadi goobayso kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay ka dhisan Bundesliga wadankaasi Germany oo ayna doonaysa in Pochettino markaa uu noqdo macalinkeeda oo ay rajeynayaan mustaqbalka dhow Real Madrid ayaana markaa rajadeedu waxay isku soo biishoban doontaa in ugu dambeyn ay u soo dari doonaan dhawaaqi ugu dambeeyay ee Pochettino oo markaa loo sheegayo in loo gacan haatinayo garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa gabi ahaanba waxay fariin gaabanba u direen kooxda kubadda cagta Real Madrid si ay kaga fogaadaan damcoodii ku aadana xidigaas u dhashay wadankaasi Ingiriiska ee Raheem Sterling maadaama kooxda kubadda cagta Real Madrid dhawaan ay ku dhawaaqeen qorshaha ay ku doonayaan xidigaas Raheem Sterling in ay ka soo ambabixiyaan garoonka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Etihad Stadium Real Madrid ayaa markaa soo bandhigtay adduun lacageed gaaraya 70 milyan oo lacagta ganiga oo sidoo kale la raacinayo xidiga u dhashay wadankaasi Wales ee Gareth Bale maadaama jirada Sky Sport ay soo xiganayso madaxda sare kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay ku macneysay arrinkani mid ay kooxda kubadda cagta Real Madrid ay la damacsan tahay in Raheem Sterling uu yahay qorshaha ugu dhow ee lagu keeni karo kooxda kubadda cagta Real Madrid inay tahay in Manchester City loo gacan galiyo adduun dhan 70 milyan oo la raacinaya Gareth Bale balse maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City arrinkaasi waa iska dabooleen waxaana ay sheegeen inaysan ka maarmin xidigaasi Raheem Sterling in uu ka dhaqaaqo garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City maxaa yeelay waxaa la xusayaa in xidigan Raheem Sterling uu aad ugu wanaagsan yahay markii loo eego isbedeladii ugu dambeeyay ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City wana laacib had iyo jeer si weyn u soo jiita dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City xidigani waxa uu ka mid yahay madaaliyaasha ugu adag ee markii loo eego kooxda kubadda cagta ee Manchester City Raheem Sterling ayaa sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola waxa uu ku tilmaamayaa in xidigan Raheem uu yahay laacib mar walba hoggaanka ama guulaha faraha badan u horseeda kooxda kubadda cagta Manchester City haddaba Real Madrid ayaana markaa aad ula dhacsan markii loo eego dhaqaaqa xoogan uu sameeyo xidigani 24 jirka Raheem Sterling maadaama laga cabsi qabo in arrinkan ay noqon karto inay sii laba jibaarto Real Madrid damceeda xidigaasi Raheem Sterling halka City ayana markaa ay ku adkaysanayso in Raheem Sterling uusan noqonin u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Real ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Spain waryaanka kooxda kubadda cagta ee Manchester City Sergio Kun Aguero ayaana markaa la sheegay inuu ku wajahan yahay u dhaqaaqista horyaalka MLS-ka ee wadankaasi Mareykanka sida hadalhayntuba ay tahay 31 jirkaan weerarka ku wanaagsan ee Sergio Kun Aguero ayaana markaa lagu wadaa
in uu soo gabagabayn doono waayihiisa ciyaareed ee kooxda kubadda cagta Manchester City marka uu dhamaado xil ciyaareedkani. Sergio Kun Aguero ayaa bari ugu dambeeyay waxaa hadalhayntiisu ahayd dalabyo ka soo gaaray marka loo eego horyaalada Shiinaha iyo Mareykanka. Sergio Kun Aguero ayaana markaa doonaya gabi ahaanba in uu ka ambabaxo qaaradaasi Yuruba. Wiilka kan u dhashay waddankaasi Argentina Sergio Kun Aguero ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City waxa uu ku soo biiray 28 July ee sanadkii 2011 waxaana laacibkaasi heshiisku kula joogo ka dhici doona bishii lixaad ee sanadka 2012 waxaana maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester City ee toddobaadkii ugu dambeeyay aad u dalbanayeen wariyahan mustaqbal ahaan bedeli kara xidigaasi Sergio Kun Aguero isku day walba waa ay sameynayaan maamulka kooxda kubadda cagta City si ay ugu dambeyntii u helaan bedelka Sergio Kun Aguero maadaama dalabkii ugu faraha badnaa dhawaan ka soo gaaray horyaalka waddankaasi Shiinaha arrinkaasi waa uu laadaya waxaana uu doonayaa in uu u dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Mareykanka. Aguero waxa aad loola xiriirinayay sida kooxaha kubadda cagta Inter Miami iyo LA Galaxy ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Mareykanka xitaa waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee New York City waxaana kooxahaasi ay ka mid yihiin kooxa inta badan ka dhex muuqda markii loo eego horyaalka waddankaasi Mareykanka oo ay u soo ciyaareen qaar ka mid ah ciyaartooy taariikh weyn ku lahaa tartamada kala duwan ee qaaradaasi Yuruba. Kun Aguero ayaana rajadiisu ay tahay in uu ku soo gabagabayn doono xifradiisa kubadda cagta mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Mareykanka waa haddii uu isaga dhaqaaqo garoonka kooxda Manchester City ee Etihad Stadium. Kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Faransiiska ayaa doonaysa in ay isuristaag xoogan ku sameeyaan da'yarka reer Faransa Kylian Mbappé oo dalabkii ugu xooga badnaa ka soo gaarayay kooxda kubadda cagta Real ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Isbaanishka. Real Madrid ayaa Kylian Mbappé inta uu ciyaarayay kooxdiisa hore ee Monaco waxay isku day xoogan sameeyeen 3 jeer laakiin waa ay ku guuldareysteen. kadib kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa markaa tilaabo kale u soo qaaday xidigan ee xarakaadka xoogan ka sameynaya magaalada Paris ee waddankaasi Faransiiska. Maamulaha kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa arinkani hordhigay madaxda sare ee kooxdaasi waxaana uu sheegay in arinkani aysan sahal ka dhiganin maxaa yeelay Real Madrid wax walba ay sameyn karaan haddii aanan heshiiska loo kordhinin Kylian Mbappé. Laacibkani reer France Kylian Mbappé ayaa Paris Saint-Germain wuxuu soo cagdhigtay sanadkii 2018 heshiiska kooxdaasina wuxuu ka dhici doonaa bishii lixaad ee sanadka 2022. arinkani ayaa sheegay in aysan u cuntumi doonin maadaama kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ay doonayso xidigani Kylian Mbappé in heshiis kordhin u sameeyaan sidoo kalena ay u ballan qaadaan mushaarka faraha badan Neymar oo ka qaadanaya kooxda PSG mid leg marka in loo gacan gelin doono. waqtiga kan xaadirka Kylian Mbappé ayaa toddobaadkii ka qaadanaya kooxda PSG adduun dhan 360 kun halka Neymar uu ka qaadanayo toddobaadkii 700 kun waxaana ay u ballan qaadayaan Neymar haddii uu diyaar u yahay heshiis kordhinta kooxda Paris Saint-Germain in la siin doono mushaarka oo Neymar ka qaadanayo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain. Real Madrid ayaa ayana weli xoojinaysa dalabkeedii ay ku doonaysay da'yarka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund Sancho maadaama laacibkani uu qorsheynayo xil ciyaareedka soo socda inuu ka soo faaruqo Bundesliga waddankaasi Germany. jirada The Daily Mail ayaana markaa shaacinaysa in xidigan u dhasho waddankaasi Ingiriiska ee Sancho uu ka mid noqonayo da'yarta ugu hadalhaynta badan. Real Madrid ayaa doonaysa adduun dhan 100 milyan oo lacagta banka in ay bixin doonaan maadaama horay qiimahaasi ay u soo bandhigtay kooxda Borussia oo ay sheegeen in da'yarkaasi ku iibin doonaan haddii uu isaga dhaqaaqayo kooxda kubadda cagta ee Borussia. laacibkani Sancho ayaa aad markaa u xiisaanaya dalabyada ka soo gaaraya kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska. dalabkii ugu dambeeyay waxaa ka soo gudbiyay Manchester City, Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain oo si gaara ciidaankani aad loola xiriirinayay balse Real Madrid ayaa arrinkaasi doonaysa inay joojiso waxaana ay diyaar leeyihiin inay bixiso qiimaha ay ku doonayso kooxda Borussia in da'yarkaasi u dhasho waddankaasi Ingiriiska Sancho ay kaga soo ambabixiyaan Bundesliga waddankaasi Germany. Cristiano Ronaldo ayaana markaa u muujiyay inuu aad ugu xun yahay dhaawac markaa soo gaaray xidiga isku waddanka yihiin Andre Gomes oo ku dhaawacmay kulan ciyaareedkii labada kooxood ee Everton iyo Tottenham Hotspur ay barbaraha ku kala baxeen. hadda waxa uu Cristiano Ronaldo u leeyahay xaqiiqdii dhaawaca xidiga Andre Gomes aad bay ii taabatay waana mid runtii dhibeysa maxaa yeelay waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waxaana laacibkani dhaawaciisa uu ka dambeeyay ama halista u horseeday xidiga Zone oo kamid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur balse markaan arkay dhaawac inta uu leeyahay waa mid aan aad ugu damqada ayuu leeyahay Cristiano Ronaldo waxaana rajeynayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu caafimaadkiisa u noqon doono mid taam ah.
maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Everton ayaana war aanan aysan jeclaysanin taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ka soo yeeray ayagoo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay tahay mid khatar ah waxaana ciiraankani laga yaabaaba in uu muddo aad u fara badan uu garoomada uu ka maqnaan doono waxaana hadda lagu qiyaasiyaa muddo hal sana in garoomada uusan cagta soo dhigi doono Andre Gomes laacibkan u dhashay waddankaasi Portugiiska ayaa sidoo kale Cristiano Ronaldo uu leeyahay mar walba aad ayaan ugu damqanayaa dhaawaca xidigaasi Andre Gomes maxaa yeelay waa ciyaaryahan aad u wanaagsan waana xidig sumcad weyn ku leh markii loo eego kubadda cagta waa laacibka kaliya ee markaa ka mid ah xidigaha ay fiirsanayaan dhammaan xulka qaranka waddankaasi Portugiiska Gomes ayaa dhaawiciisa markaa Cristiano Ronaldo uu ku tilmaamaya in uu rajeynayo in laacibkaas uu ka kici doono dhaawaca markaas uu gaaray